رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. السلام عليكم ورحمة الله. ميل والبض عالمك كتشوكتان كسو دوادا كنال كريغل ميديا. waxaan ku guda jirnay mawduuceen imtixaanaha ahaa ee sida loogu guuleysto nolosha adduunyada iyo aakhiro. waxaanu soo gaarnay qaybteennii afraad oo aan ugu talagalnay inay noqoto qaybta ugu dambaysa ee barnaamijkeena aan ku soo afmeeri doono. waxaanu ku soo qaadan doonaa 3 qodob oo kala ah shukru nicma iyo xoogsiga xalaasha iyo go'aan qaadashada. waxaanu ku horeyn doonaa shukru nicma. ashukru wa nicma horta waa laba kelmadood. nimcada ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo lagu mahadnaqo. shukrigu horta ugu horeen waxa weeyaan inaad qirato allaha kuu nimceeyay nimcadiisa. culimaduna waxay yiraahdeen waxa weeyaan nimcada uu alla ku siiyay ina raadkeeda ka muuqato weeyaan carabkaaga oo qalbigaaga aad kaga xirantay ilaahay subxaanahu wa ta'aala. nicmana waxa weeyaan waxa la yiraahdaa wixii alla kuu nimceeyay amba uu alla adoonkiisa siiyay hadday tahay arsaaq hadday tahay maal hadday tahay raxmad iyo roob hadday tahay caafimaad hadday tahay amni hadday tahay cilmi iyo aftahanimo hadday tahay khayr ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku siiyo. nimca waa kelmad shaamil ah oo ah wixii alla ku siiyo inaad ka mahadnaqdo. inuu qofku haddaba uu ka mahadnaqo nimcooyinka ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyay waa sifooyinka ugu wanaagsan iyo akhlaaqda teeda wanaagsan ee diintu ay naga doonayso. anbiyadana ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka wuxuu ku sheegay inay ahaayeen kuwa ka mahad celiya nimcooyinkiisa. nabigeena maxamedna hadaynu tusaale u soo qaadano sida uu salaad u tukanayo ayay cirbihiisu dildilaaci jireen. markaasay Aisha ku oranaysay nabi allah adigu oo dambigaaga hore iyo kaagi dambaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhaafay maxaad sida ugu dhibaysaa naftaada. nabigu sallallahu alayhi wasallam Aisha wuxuu ku lahaa haduu ilaahay dambigayga hore iyo kaygii dambe dhaafay miyaanan noqonin adoon u shukriya. ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam lahaa. waxa uu garanayaa fadliga iyo nimcada ay leedahay nabigu mahadnaqa ilaahay subxaanahu wa ta'aala. qofku ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo mahad celiyana adduun iyo aakhiro gul ayuu ku gaadhayaa. nimcadaad haysataan dabar bay u noqotaa shukrigu. nimcadaynu haysano dabar bay u noqonaysaa shukrigu. nimcooyin kalena way noo soo jiidaysaa haddaad ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga mahad celiso nimcooyinku ku siiyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku siyaadinaya. nimco uu bixiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa ugu weyn islaamnimada. inteebay mahadnaq ilaahay naga mudan yahay inaan ugu mahad celino maadaama aynu nahay dad islaama ku dhex dhaqan dad muslimiina. maadaama aynu nahay dad islaama oo alxamdulillah rabbil caalamiin ku nool dalal barwaaqo ah dhul ahaan bari hadday tahay iyo bad hadday taba inteebu ilaahay nimco inaan ugu mahad celino inaga mudan yahay. haddaynu tusaale haddaba u soo qaadano waxyaabaha tilmaamaya inuu shukrigu yahay waxyaalaha waaweyn ee guusha lagu gaadho. nabiyullaahi nuux wuxuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala tilmaamaya calayhi salaam waxa uu ahaa wuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala oranayaa mid mahadnaq badan. ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku ammaanayaa mahadnaq. bal u fiirso ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waxa uu leeyahay addoommadaydiiyow i mahadnaqa oo iga gaaloobina. inaad ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad ugu mahad celisid nimcada uu ku siiyey adduunya aakhiraba walaal guul baad ku gaadhaysaa. noqo haddaba mid ilaahay subxaanahu wa ta'aala u mahad celiya mar walba. shaqada xalaasha iyo xoogsiga xalaasha oo ah qodobka labaad. ugu horeyn xoogsiga xalaasha horta waa waajib inaynu seefati yeelanaana oo aynu dheeraad soo saarnaana waa wax loo baahan yahay. haddii aynu raahno ummadoo dhan ha wardido oo in kugu filan markaad soo shaqaysato iska fadhiiso oo wax kala ha qaban. cilmi yaan la baran, dhaqaale yaan la baran, caafimaad yaan la baran, xisaab yaan la baran. waxaynu noqonaynaa dhammaanteen ummad dadka ku dulnool oo dhimatay waxna aan qabsan karin. waxaanu ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka ku yiri xoog iyo awood waxaad haysataan u diyaarsada cadowga. haddaba haddaynaan shaqaysan guul ma gaari karno, cadowgeennana iskama celin karno, nafteenana horumar gaarsiin kari mayno.
haddaad tahay haddaba arday wax bartay oon shaqo helin walaal weli intaad helayso fursad ay kuu soo baxayso waa inaad xoog ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siiyey aad ku shaqaysataa oo aad noloshaada ku dabartaa dhulkana hays dhigin waa inaad waqtigaaga aad ka faa'iidaysataa oo haddii aad fursaddii aad cilmigaaga haddaad ku heli weyday fursad qalin xooggaaga ku shaqayso waxaynu aragnaa imaka dhalinyaro ka cabanaysa shaqalaan laakiinse aan u diyaarsanayn shaqo ayaynu aragnaa tusaale ahaan salaad ma tukanayaan surwaalkii baa kasii dhacaya qof maaha dee aamin oo mas-uula oo mukhaadiraadkiiba iska cunaya waxa uu hadhu kuna andadacoonayaa inuu yahay bilaa camal inuu qabyaalad awgeed shaqadiisii uu waayaba ku andadacoonayaa oo la shaqaalaysiinaya dad kale oo isaguu ka mudan yahay jawaabtu haddaba waxa weeyaan bal imaka haddii aad maaragtay adigu aad kaba soo qaatahay nin ganacsada oo hanti leh qof kuu shaqeeya aad u baahantay qof qaylaaya aan tukanayn oo wanaagsanayn akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu shakhsiyadiisu aanay wanaagsanayn wax ma u dhiibanaysaa jawaabtu waa maya haddaba sidee baad ku doonaysaa adigoo marxaladaha si ku sugan inaad shaqaysid macquul maaha waa inaad naftaada diyaarisaa oo aad marka hore qof mas-uula iska dhigtaa oo aad allaha subxaanahu wa tacaala ku jirsiiyey islaamkaa dhigay aad u mahad celisaayood oo tukataa salaadaada oo aad waqtigaaga ka faa'iidaysataa oo aad noqotaa qof dhisan oo shakhsiyadiisu dhisan tahay marka waxaad noqonaysaa qof la aamini karo kuna doodi kara hadduu heli waayo wuxuu xaq u lahaa dee maan helin ku doodi karaa laakiinse intaad saa tahay kuma doodi kartid dadkeenii niga hore ee asxaabta waxay ahaayeen dad wax soo saarka dad hadday wax soo saartay dadka ugu badan bay ahaayeen shaqo la qabtana dadka ugu hawlkarsan bay ahaayeen laakiin markay noqoto daadaadiska iyo kuraaxaysiga hadday noqoto maalka iyo israafka waxayn dadka kuwa ugu yar bay ahaayeen dee wax daadaadiya meehen kuwo iska daadaadiya wax si aynu haddaba u noqono ummad awood ahaan dhisan sharaf badan guulaysataa adduunya aakhiro waa inaynu si fiican u shaqaysanaa si fiicanna aynu cibaadaysanaa qodobka afraad oo ah go-aan qaadashada wadooyinka lagu gaadho guushu horta way badan yihiin inaad waqtigaaga ilaalisid waa waddo ka mid a wadooyinka lagu gaadho guusha inaad naftaada ku kalsoonaato waa waddo ka mid a wadooyinka lagu gaadho guusha inaad hadaf yeelatid waa waddo ka mid a wadooyinka guusha intaas oo dhanna waxa asal u ah go-aan qaadashada haddaanad go-aan qaadan inaad waqtigaaga ilaashan maysid haddaanad go-aan ku qaadan inaad yeelato hadaf dee yeelan maysid guulna gaari maysid sidaa awgeed go-aan qaadashadu waa meesha asalka u ah dhammaan qodobada mawduuceena aan idugula wadaagay mawduuceena taxaraha dhammaan qodobada aan idugula wadaagay waa meesha asalka u ah go-aan qaadashadu haddii aanad ku talagelin mawduuceena qodobadaan idugula wadaagay ah sida loo guulaysto adduunya aakhiro dee kuma dhaqaaqaysid oo qodobadaas qof dhaqangeliya noqon maysid haddaba naftaada ku dabaq qodobada aan idugula wadaagay mawduuceena taxanaha si aad u noqotid qof guulaysta adduunya aakhiraba waqtigiisana ka faa'iidaysta qodobada haddaba aan soo taxay ee mawduuceena idugula wadaagayay waa qodobo ka mid a kuwa guusha lagu gaadho adduunya aakhiraba waxaana loo baahan yahay inaynu ku tuutuusanno qodobadaas guusha lagu gaadhay adduunya aakhiraba hadday tahay shakhsi haddaynu nahay qaran iyo haddaynu nahay qoysba